السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مسج كان وحو قصيا قف كستا والد يكون نول مركز قربها هدي وياهي هويو يهدو آبي يهي لبضبا sidoo kale wuxuu quseeyaa qof kasta ee doonaya inuu qurbaha waalid ku noqdo hadda kadib u tabaabushisan doono rag iyo dumarba sidoo kale message-kan wuxuu quseeyaa qof kasta ee damiir leh ee jecel walaalkiisa kale inuu halisaha uga digo oo uu markaas u share gareeyo message-kan intaasba waajibaad ayaa inaga saaran dadkii aan marka message-kan aan soo gudbinayo videoga ka horeeyay qaybtan waxay noqonaysaa qaybtii labaad marka haddii aad videoga hore soo daawan waxaa laga yaabaa inaad videoyashan ku yara wareerto oo la qabsan weyd marka saad noola qabsato qaybta koobaad soo daawo tan qaybtii labaad weeyaan biidnillaahi tacaala marka videogan waxaan ku diiradda ku saari doonaa sababta aan ugu baahanahay maxay tahay in aan qurbaha ka soo guuro ee ama dalkayga hooyo soo aado ama dal kale ee marka islaam aan aado maxay tahay sababta marka igu riixaysa in aan ka soo guuro qurbaha iyo theoryal ku saabsan reality-ga jira marka haddii aadan horay marka aadan introduction-kayga ama waji baristayda aanad hore ula soconin waxaan ahay Nafisa Abtidoon hooyo Soomaaliyeed oo dhiirigelisa walaalaheeda Soomaaliyeed sidoo kalena haysata ganacsi online ah oo markaas aan uga faa'iideyno cidii kasta ee danaynaysa in ay ka faa'iideysato marka haddii aad danaynayso inaad fursadahaas aan kula wadaago xagga hoose ayaad ku dhaafi doontaa meel lagala soo xiriiro amaba ma aragtay telefoonada iyo detailska hoos yaala ayaad ma aragtay nagala soo xiriiri kartaa biidnillaahi tacaala marka maantay barnaamijkan aan jecelahay inaan idinla soo wadaago waa magacaan hore idinkugu soo xusay oo ah maxay tahay sababta aan qurbaha uga soo guurayna inta marka aanan kula wadaagin sababaha ugu muhiimsan ee loo soo guurayo ama loo hijroonayo ayaa waxaan jecelahay inaan sheeko yar oo aniga iyo hooyo Soomaaliyeedna dhex martay xilligan baraarugayay ayaan jecelahay in aadna kula wadaago ee dhagahaga iyo amaahin sheekadan waxay ku bilaabanaysaa sida tan hooyo Soomaaliyeed ayaa waxaan ku kulannay meelaha maaragtay lagu sheekaysto ama xariiqooyinka marka ciyaalada iyo la isugu keeno hooyadii Soomaaliyeed sheekada soo socota ayaana dhex martay hooyadu meel jirdina iska fadhiday caadi bay maaragtay iskaga leeryar iska qaadanaysa meelaha playground-ka loo yaqaano kadibna ciyaal baan keenay bilowga meeshii lagu ciyaarayay ee playground-ka ama back waxaad u taqaanid ama meelaha xadiiqooyinka lagu ciyaaro kadibna ciyaalkayga baan iska ciyaarsiisanayay oo aad u yaryar oon ka daba ordayay hooyadii marka Soomaaliya waan sheekaysanay waan is salaanay waxay igu tiri hooyo ciyaalkan bad wadaha imisaad haysataa inta iyo inta waxay igu tiri hooyo inta aadan sidaydoo kala gablaminin iskaga carar halkaanu ma aha meeshii aad ku raaxaysan lahayd ama meeshii aad ma aragtay ciyaalkaga daba carcar lahayd halkaani ma aha gambaleel baa igu yeeray waan yaabay maxay kala jeedaa inay ka geeriyoodeen baan markiiba igu qalbigay ku soo dhacday oo ilmuhu halkan ama kaga dhinteen ama laga dilay ama si wax u dhaceen markaasaan ku iri hooyo maxaa dhacay bismillaahi raxmaani raxiim maxaa kaaga dhacay ciyaalkii waxay tiri 4 ciyaal ayaan dhalay oo waliba inamo waxay loo yaqaanaa dee anagu koonfurta waxaan nidhahnaa wiilal laakiin inamo gabdhahan anagu isticmaalnaa u malaynaya koonfurta laakiin way fahmayaan dadka daawan doonaa waa wiilal intaasoo wiil baan dhalay kadibna midna gacanta maanta kuma hayo oo waxa weeyaan fursadii maanta sidaadaan oo kale aan uga faa'iideysan lahaa xilligay joogeenna kama aanan faa'iideysan oo in aan maantay ama diin ama dhaqan ama ma aragtay dadnimo soo baro fursadaas ilaahay imu waafajinin oo waxa weeyaan adduunyadayda kale ayaan eriyanayay laakiin maantay dhammaantood waxay noqdeen ilmahan duurka gala ma aragtay waxaan u maleynayaa wadankan in qaarkood bay tiri ma dhihin dhammaantood waxay tiri qaarkood waxay noqdeen ilmahan maanta duurka galay waxa weeyaan Soomaaliya waxaan u maleynayaa waxay u yaqaaniin gangis baa la yiraahdaa xagga halkaana waa ciyaal weeraan u maleynayaa in magaca loo yaqaano wadanka Soomaaliya marka waxay tiri halkaas ay galeen waxay barteen maartay balwadihii kala duwanaa adduunyo dhan ilaa qaar waxay tiri lugta laga xiray qaarna ay ma aragtay de ay sidaa yihiin mid baa iiga sii dambeeyo oo kiina waxay tiri xilligu rabuu albaabka de soo furaa xilligu rabuu sii socdaa xilligu rabuu soo socdaa mana aha midaan anigu u taliyo ama warkayga yeelaya ama wadadii anigu aan doonayay runtii hooyoy intaadan gablamin ba iigu soo gabagabaysay intaadan sidaydoo kale ku gablamin halkan maantay intay maalintaa isaga orod
ama isaga tag wallahi gambareel baa igu yeeray hadalka igu dhagay waxaan iri hooy aad baan uga xumahay waan sheekaysanay marka niyadeedii markiiba waxay siisay ila bini aadanku waa aragtay markii wax loo sheego markiiba waxay zoom garaynayaan ama de wax kala jiraan oo kale kasaan ku iri hooy maxaa dhacay ma ragga ma kalinimaad ku hayn weyday oo waxa weeyaan arrimahaas mayay tiri sawj wanaagsan baan haystaa waan isqabnaa wuu shaqaystaa waan shaqaystaa labadayaduba laakiin fursadii ay xilliga yaryaraayeen xilligii ay ahayd inaan maaragtay ama dhaqankoodii soo barna ama diintoodii soo barna ama aanu gadaal u celino nooma ay suuro gelin oo waxaan ku mashquulsanayn inaan maaragtay dabaqay dhisno guryo u dhisano guryahaygii ijaar baa loogu jira waka iyo sheekooyin iska dheer iyo dhulal iyo waxaan isaga mashquulsanayn bay tiri inaynu samayno xoolo say maantii berri noo ahayd ayay halkaas nala gaartay maalintaas ayaa gambaleelku igu yeeray markaasaan waxaan iri allaylehe macnaha waxaa jirta wax leedahay macnaha flip side macnaha wax oo markiiba qalbigaaga inkasta oo dareenkayga ayna marnaba ka marayn in cunugu dhaqankiisa iyo diintiisa iyo kaaljarkiisa iyo meesha uu ka soo jeedo uu u baahan yahay haddana tani waxay ii noqotay dhiirigelintii koobaad ee aan go-aanka degdega ku qaatay xilligiiba go-aan baa qaatay safarkayga markaa hajijiradun halkaasuu ka bilowday gambaleelkaas maamadaas ilaahay ajir ka siiye ay ii yeerisay waxaan usoo noqonaynaa marka historigaas waxaan kuula wadaagay in aad baraarugto oo aysan ahayn ciyaar arrinta aan kula wadaagaya marka hijrada waxa loo yaqaanaa hijrada dadku qofba sibuu usoo haajiraa ama qofba sibuu uga soo tagaa meeshuu joogo uu u tagaa meel kale marka haddii aad adigu ka soo tagtay xaggan commentiga inagula wadaagi doontaa haddaad ka soo tagtay wadankii aad markaa ku noolayd wadanku rababa ha noqday maxay ahayd sababtii kuugu weynayd ee kugu soo riixday in aad ma aragtay halkaa ka soo tagto oo aad timaado wadankaagii ama wadan kaloo islaam ah maxay tahay sababta ugu weyn horta dhowr sababood ayaa loogaga soo tagaa meelaha ma aragtay markaa lagu nool yahay ee kala duwan sababta koobaad waxaan dhihi karnaa waa hijrada saxda ah ee qofku looga baahan yahay laakiin uma malaynayo qof Soomaaliyeed hooyo ama aabba Soomaaliyeed oo carada jooga mar raximallah iyo sida culimadayada sharafta badan oo kale iyo dad yar oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u naxariista maahane horta Ilaahay dartii ayaa ah in mowqifka koobaad ee qofka aan isleeyahay uu u soo haajiri kara laakiin way yar tahay qof Ilaahay dartii yiraahda ayaan halkan kaga tagayaayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa jeclaaday halkaan waxa weey halkaygii maaha waa halkii la yiraahdo laga haajiro ee Ilaahay dartii baan uga tagayaa way yar tahay wali ma aragteen qof aan waalid ahayn oo markaa ilmo la soo cararaynin ee kaliya inta naftiisa la soo cararay yimid wadankiisii ama wadan kale oo islaam tagay leh ma aragtay halka intaan ku fidnoobi lahaa ama arrimo kale igu qabsan lahaayeen de maarta naftaydan seef garaynaya anu kale ma arag maybe waa jira laakiin anu ma arag laakiin hijrada saxda ahi waa midda qofku uu Ilaahay dartii wax kaga tago oo uu Ilaahay dartii meel kale u aado taasi waa qodobka koobaad aan dhihi karnaa aad iyo aadna way ugu yar tahay qof Soomaali ah ama hooyo miskiin oo aniga kala ah iyo dadkan iska masaakiinta iska caamada ah ama aan cilmiga badan haynin way ku adag tahay in Ilaahay dartii meel kaga tagaan laakiin muhiimiyadu waxa weeyaan qodobka koobaad oo qofka bini aadanka ama qofka ibnu aadamka aan sidii karno uu kaga soo tagayaa meesha uu maanta nolosha qabow isaga haysto oo fridge u buuxay oo meel yara kulul oo fridge u buuxin u imaan kara waxaan isleenahay waa Ilaahay dartii qodobka labaad oo isleeyahay maanta qofku kaga soo dhaqaaqi karaa qaybta labaad waxaan dhihi karnaa qofku dib qabsatay ayuu ku soo haajiri karaa ama uu kaga soo tagi karaa meel uu joogo oo uu markaas u bixi karaa meel kale maxay noqon kartaa dhibku Ilaahay subhanahu wa ta'ala dib hay naga hayo laakiin waxay noqon kartaa qofku ciyaalka lagu soo weeraray wad aragteen carrada maanta qurbaha waliba Yurubta Mareykan anu aad warguma hayo laakiin waxaan ogahay Yurubta aad ba ilmaha loogu soo weeraraa hooyada iyo aabaha ama waalidiinta sida in maarta qalad dhaco sida in maaragtay maantay
cunuga uu yiraahdo waxba la igu sameeyo kala sababta ilmahan waa iska innocent ama waa iska daacad waxa weeyaan waxa laga yaabaa waalidku canaananayo leh war sidaa wax yeel inuu arka khalad oo yiraahdo maanta saasan dareemaya xitaa waxa la weyd xoog ba ilmaha maaragtay loola sheekaystaa sidaa daraadeed in waalidkii oo dadaalaya oo u kufayo u kacay ilmihii lagu soo weeraro waa arrimaha ugu horeeya ee waxa weeyaan fleet waxay dhahaan marka uu qofku baxsad ka yahay bal fleet maxay fleet of fly ma la dhihi jiray macnaha fleet of fly waxa weeyaan amin duusho oo carardo yacnaha in qofku markuu cabsado kale dee uu cararaya oo waxa weeyaan duruuf baa wada wuxuu diidayaa ilmahan ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyay oo islaamka ah oo diinta islaamku dhashay oo waxa weeyaan ilaahay waajibaadka uu ka saaray in uusan cid kale oo aan ku diin ahayn ama aan ku dhaqan ahayn inuusan gacanta u gelin marka waalidkaas muxuu samaynayaa intii arrintii aynan faafin ama aynan maaragta dhibkii meel weyn gaarin ayuu ka cararayaa marka waxaan dhihi karnaa midda cabsida ah cabsi baan dhihi karnaa haddii la isku soo duubo waxay noqon kartaa kelmadda cabsida inuu qofkaasi meesha uu joogo uu kaga soo tago cabsidaasoo meelo badan geli kartaa in maaragtay dadka ilmaha dadka ka qaada ay soo weeraraan in maaragtay markaa cunug uu dhalay oo kale dhibaatooyin sameeya waad aragteen oo ilmaha maaragtay markay soo koraan ay teenage soo gaaraan dhibaatooyin badan bay marxaladda dhalinyaranimada ay ku dhacaan sidayna bilwad bilaabaan sidayna maaragtay ciyaalkan maaragtay ciyaal weerada aan dhahno annagu halkaan oo kale waxaan u malay gaangiska loo yaqaano oo kale ay ku biiraan ilmihii marka sidaa daraadeed cunugii markuu dhib u keeno ama uu maaragtay waxyaala dhibaatooyin uu cunugii la kulmo ehelkii markaa ama familkii reer cunugaas waa la soo weerarayaa waxaa la dhahayaa waa la baarayaa macnaha dhibaatooyin in maaragtay famil cunugan maxaa koos gareeyay in boolis yimaado in cunugii la xiro in ilmihii kala waraysi lagu qabto iyo dhibaatooyin kale ee aad u fara badan qofku marka dhibaatadaas ama waxaas dhibta loo yaqaano ayaan dhihi karnaa isku soo duuba dhibku meeshuu raba ha noqdo ama ilmo lagu soo weerara ha noqdo ama maaragtay dhib markuu dareemo qofka weeyaan baan dhihi karnaa qaybta labaadna sababta uu usoo tegayo qayb uu ilaahay dartii inuu qofku usoo maaragtay haajiro iyo qaybta labaad oo ah inuu maaragtay qofka cabsi la soo haajiro qayb saddexaad baa jirta oo labadaa midna ahayn oo ah qofkaani inuu yiraahdo ilmahayga waxaan la doonayaa in ay maantay soo bartaan ama diinta islaamka ama dhaqanka ama maaragtay af soomaaligii ama maaragtay baahiyahaas kala duwan waa kuwa aniga aan ku jiro baan rajaynayaa dadkaas qaybta saddexaad ah qaybahaasna waa qaybta ugu ballaaran ama ugu weyn ee qof walbaahi uu kaga soo tago meesha uu joogo kaga soo haajiro oo uu u yimaado dalkiisa si uu dhaqankii ilmihiisa u bartaan af soomaaliga quruxda badnaa isagu yaqaana u bartaan weliba carrada wadamadu way kala jiraan sida hadda aniga waddankan kasoo guuray oo kale UK aad bay ilmaha luuqadda ugu liitaan yurubta kale waxay nagaga fiican tahay ilmuhu af soomaali fiican bay ku hadlaan laakiin dhinacaas mar raximallah way jirtaa oo familo yaryar oo ka kooban maybe qoys aan badnayn way jiraan laakiin waxaa la isku raacay ama ay u badan yihiin ilmaha in aysan luuqadda soomaaliga aysan si fiican u aqoonin qiso yar haddaan idinla sheergareeyo waxaa dhacaysa mararka qaarkood inaad doonaysid ilmahaaga in aad si private ama si qaasa aad ula hadasho asagoo meel babliga jooga iskuul baad joogtaan waxaad damcaysaa ama meelaha yaryar xadiiqooy ilmaha lagu ciyaarsiiyo waxaad damcaysaa in aad cunugii af soomaali wax ugu sheegto oo tiraahdo waxaa waa khalad hana samaynin kaana ka joog kana waa khalad oo hooyo waxaan maaragtay diinteedu ma ogola amna dad islaam anaga nahay ceeb waaye waxaan lama sameeyo kan anaga waa xaaraan waxyaalaha ay ku ciyaarayaan oo khaldan oo kale haddii aad ku aragta adoo meesha ilmi ku ciyaarsiinaya ama la jooga ama meesha ka shaqaynayo kale cunugii haddaad wax maaragta damacada inaad ku tiraahdo inuu markiiba cunugii kuugu jawaabo luqadii markaas meesha la wada fahmayay anigaan idinla hadlayo waxyaalaha aan aadka u necbaan jiray waxay ahayd markii cunugu intaan si maaragtay sir ah ula hadlo uu maaragtay luqadda ingiriiska igu jawaabo ama ha ahaye saas weeye hooyo waan yeelaya inuu ama ha dhaho ama dee ha diido oo markaas xoogaa ha kugu hadal diido ilmihii yaraaye 2-3 sano jira ilaa wuxuu fahmi mahayo inuu maaragtay ku yiraahdo waa caadi saas waa uu luqadii kale igu yiraahdo aad baan uga diiqadoon jiray
كل بقف كست والدة والضمير لنا وقد قضانيا وحاجة قصة إن إلهي سبحانه وتعالى حفظيو إن محل هذا إن شيخنا محل الشيخ مصطفى حاج إسماعيل أيا وحو يرمر كان قربها تجي أيان أوجادي إن أي ما أركتي أف صومالي ودين تكمديها runtii arrintaas aad baan u ta'kiidinayaa maxaa yeelay markuu cunugu luqadiisa aqoonin aad iyo aad bay u adag tahay in aad wax ku fahansiiso ama cilmigii ama aqoontii ama waanadii ama taladii wixii aad la rabtay qalbigiisa ma galayaan arrintaasna waxaan rajaynayaa qof walba inuu ku baraarugsan yahay marka saddexdaas ugu waaweyn baan is oran karnaa inuu ilaahay dartii qofku marka hore u soo haajiro oo dad yar oo ilaahay u naxariista ay yihiin qaybta labaad oo ah in maaragtay uu qofka cabsi soo kaxayso oo dhinacay rabtaha ka soo waajahday in ay tahay midaan saddexaad ee ah inuu qofkii diintii iyo akhlaaqdii iyo af Soomaaligii iyo dhaqankii iyo wanaagii uu la doonayo qodob kale oo muhiim ah oo waxa jira aan qodobadan marka la xiriirin oo ka mid ah dhiirigelinta ama talada aan ku darayo oo ah saddexdan qodob aan ku darayo oo ah ilmaha ku koraa meeshaas si walba ugu dadaal diin walba bar akhlaaq walba bar dadaal walba geli hal arrin ayaa ahayn midda aad doonayso haddii I don't know maybe haddaad waalidiinta xagga iskala qabsaday xagga ku dhashay garanaynin waxaan ka hadlayo ama dhaqanka ama af Soomaaliga ama diin wax aan ka hadlayo haddaadan fahmaynin dabcan xanuunku kuma qabanayso laakiin waalid kasta ee damiir leh arrinta saameyn doontaa waxay tahay ilmaha ku dhashaa qurbaha oo ku kora oo aan weligii dalkiisa arag oo aan weligii dhaqankiisa arag oo aan weligiis sida dadkiisu ay yihiin iyo sida ay u nool yihiin iyo sida isku caawiyaan iyo sida isku taageeraan iyo sida ay isku dhaleen midna aan garanaynin halka caqabad oo aan anigu arkay oo la yaabay macnaha dadka wadan ku koray aan ku arkay ayaa waxay tahay ilmahaas wuxuu ku fakarayaa what is in waxay dhahaan dadkaani maxay tahay danta igu jirta wax kasta oo uu maartay ilmahaasi aad ku tiraahdo ama aad rabto adigu inuu qabto wuxuu ku leeyahay danta igu jirta maxay tahay taas waxaan kala jeedaa macnaheedu uu yahay ilmahaanu asaga ayaa isku tashanaya wuxuu arkay saaxiibkii oo 18 sano markuu gaaro guriga laga saarayo wuxuu arkay saaxiibkii oo saaxiibadeed oo markii 18 sano ay gaadhay meel cidla degtay saaxiibadeed oo waalidkeed asxaan u sameynaynin saaxiibadeed oo waalidkeed biilaynin saaxiibkiis oo maaragtay waalidkii shaqo ku lahayn oo kaligii jaamacadda iska dhex degan saaxiibkii oo aan ehel ku xiriirsanayn saaxiibkii oo aan hooyadii laga yaabo ama aabiyo magaalada dhinac ka jooga inuusan asbuuc la hadlin dhaqankaasu cunugii wuu saameynaya marka waliba ilmuhu soo waay marka ilmaha yaryar yihiin de farqad ku haysataa iskuul baad geenaysaa oo ka keenaysaa ma dareemi kadib dhibka aan sheegayo sababta qof markuu dhex galo community-ga markuu dhex galo ama uu dad waaweyn ilmo waaweyn uu la shaqeeyo ama ilmo waaweyn uu maaragtay la dhex galo oo uu maaragtay arka dhaqankooda ayaa dareemi kartaa wax aan ka hadlayo laakiin qof hadaad tahay hooyo ama aabe laba cunug iyo saddex haysto hadda ugub ah oo waxa weeyaan noloshu maaragtay ay xaggan yar oo hoose wali jooga ma dareemi karto videogan mana xanuujin karo laakiin waxaan ka hadlayaa dadku marka ilmuhu koraan commentigana waa noogu reebi kartaan marka ilmuhu koraan ay 20 iyo wixii ka sareeyay ay gaaraan ciladaha lagu arkay dadka aan weligood wadanka laga saarin maaragtay dhaqankooda soo baran luqadooda soo baran af Soomaali soo baran waxba soo baranin ayeeyo arkin dad maaragtay la dhaqma sida dadkiina u dhaqmaan aynan arkin runtii waxa ugu yar oo hadii ilaahay ka badbaadiyo dhibaatooyinka kale oo dhan ilaahay ka badbaadiyo arinta ugu yar ee la kulmi kartaa ilaahay kuma tusee waxay noqon kartaa cunugaas oo ahsaan u sameynaynin cid kale tiisa kaliya ku fakaraya savingkiisa dhaqaalihiisa ku fakaraya gaarigiisa ku fakaraya sidoo nolol u dhisan lahaa ku fakaraya laakiin adigu aadan xisaabta ugu jirin hooyadaaba daawarkeeda aabaha daawarkiisa ayeeyo wax leeyahay daawarkeeda tiisa kaliya ku xisaabtamaya waxa aan ka hadlayaana qofka dareemi kara oo damiirta lehi waa uu ila soo sheer gareyn kara commentigana uu ku soo reebi kara waxyaalaha uu shaahid u soo noqday ma aha in anigu aan
ilmahaygu ay gaareen da'daas laakiin dadka aan mar walba la shaqaynayno kuwaan u turjumayno kuwaan raacayno dadka communityyaasha la shaqeeya ama ma aragtay communityga mar walba ku dhex jira ayaa xaaladaha aan ka hadlaya dareemi kara waxaa jirtay ilmo yar iyagoo aad u yaryar ilmahaygu maalbaan waad aragtay meelaha xawlaadaha lacagaha laga diri jiray berigii hore lacag baad diraysaa waad aragtay intaad ilmihii kaxayso waxaa laga yaabaa haddaad hooyo markaad ilmihii cidaad uga sii tagtay ilaa meeshan shaqaale ma joogo hooyo ma joogto walaalku arxamaya ma joogo cid ilmaha aad guri kaga sii tagaysaahi xanuunka waxaa dareemi kara dadka xagga ku nool meeshaan waxa weeyaan gabar yaroo shaqaalaba qofka iska haystaa hooyadii baa joogta in adeertiis gabar qaraabo ah mid meelay ku noolaato u baahan laakiin xagga waxaas ma jiraan adiga ayaa isku hooyo adiga ayaa isku aabba adiga ayaa isku ehel ah iyo dee ilaahay waalidkii kale ee awlaadda idinka dhex beeray marka maalmaha ka mid ayaa waxaa jirtay ilmo yaroo dhalay oo ila socda inaan maaragtay baxay meel xawilaadna aan waalidkay lacagta uga soo dirayay bangigii baan tagay waad aragtay berigii hore ababkan iyo waxaan ma jirin waxaa jiray xawilaad caadiya inta lacagta la qaada in la geyn jiray markaasaa ilmihii yaraa oo isla soconayba wuxuu baa lacagtii oo bangiga baan tagay lacagtii baan kasoo saaray laba qayb oo jeer baan kasoo kala saaray waan baxnay meeshii xawlaadaan tagay intaas lacag dir lacagihii baan dadkaan u diray u kala diray waan soo baxnay markuu soo baxnay wuxuu yiri hooyo meeqaad dirtay ilmuhu waa very clever waa waxa yar waxaan ka hadlaya markaasaa iri intaa hooyo markaasuu iyaad u dirdhay hooyaday iyo walaalkay iyo waa kaa dadkii baan kala sheegay markaasuu yiri hooyo annaka maxaad noo reebtay lacagtii oo dhan ba haddaad waalidka waayaad ugu diraysaa sabab ayagu lacag ma haystaan miya ayagu ma shaqaystaan miya maxay taa sababta aad ugu diraysaa lacagtoonoo dhan fiiriya waa ilmo yar aad u yar halkaa waxay ku tusaysaa waxa adigu aad doonayso iyo dhaqanka aad doonayso iyo waalidnimada waxa adigu aad raadinaysaa oo xaqiiqada ah inaysan xagga oolin ilmahanu waxayga iyo what is it for me bay dhahaan gaalada maxaa danaho iigu jira waxa inay yihiin message-kan waxaan rajaynayaa waan kala jarjari doonaa message kala duwan baan ka soo dhigi doonaa laakiin waxaan isleeyahay sababta ugu weyn oo ay tahay in aad u baraarugto oo aad maanta u tashato oo u soo jeesataa haddaad doonaysid ilmo ilaahay yaqaana adigana ku yaqaana maxaa leeyahay waalidkaana yaqaana haddaad maanta adduunka ka tagtana kuu soo duceeya kuu soo aqriya quraan kuu soo duceeya ku soo xasuusta hooyadaa xasuusta ciddaad xiriirin jirta xiriiriya ciddaad maarata wax tari jirta tara waxaan rajaynayaa in aad maanta baraarugi doontid oo aadan sugin ilaa iyo lagu yiraahdo what is in it for me maxaa aniga danaho iigu jira ilaa lagu yiraahdo marka baraarug waxaan leeyahay haddaad hooyo tahay baraarug haddaad aabbo tahay baraarug insha allahu tacaala waxaan kusoo koobayaa xusuusnow ilaahay subxaana watacaala wuxuu kuu qoray horta inaad marayso oo marnaba ama meel kale joog ama guur ama meeshaad rabtid tag dhibaatooyinka insha allahu tacaala mar kalan ka sheekayn doonaa haddii aad meelahan timaadana ayada laftirkeedu inaysan igu soo orod ahayn jihaad kale iyo dagaal kale iyaduna ay kaa doonayso فيديو كلا يعني كسر سمين دونا بإذن الله تعالى مرك فضلا وحنا قاعد صنايا هدو مسج كان كعجب قليي أو هاي مسج هذا أضبها هنتا إن صوب بدنه فضلا بيج كان وحنا قاعد سنين إن شاء الله إن تسبسكرايب channel كان صارتو شير جريسو كومنتينا عاد نور ريبتو يا وحيالها عاد السلادة هاي ومضنتها إلا قصوا هلا إنتبه عاد بايدين السلامية وولاشين نفسات الدونا إذن الله قوليسته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته